إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa cibaadooyinka kolba qayb ka mid ah oo aayaduhu ay nooga waramayaan fi suurati al-baqara. cibaadadii soomka ilaahay uu soo faray, cibaadadii xajka, cibaadadii jihaadka, cibaadadii lagu cibaadeysanayay in xaas iyo qoys iyo usro la sameeyo, cibaadadii cadiyada iyo sadaqada aynu marayna oo aayadkan soo socda ay ka waramayaan. idan waxaad arkaysaa diinta islaamku waa nidaamul xayaa, waa nidaamkii nolosha meelnaba lama rabo inay cibaado ka baxdo. ilaa 14 aayadood oo istaba yaallo soo socda ayaa waxay ka waramayaan cibaadada cadiyada ama deeqsinimada iyo waxbixinta ama infaaq iyo maalka ama faral ha ahaado ama sunne labadaba. markaynu ta'ammul ku sameeyno fi hadhihi al-ayat shan arrimood baa inooga muuqanaya. ta horeysa waxa weeye qiimaha iyo tayada ay leedahay waxbixinta ilaahay wax la amaahinayo subxaanahu wa tacaala. waxa ilaahay uu ku horeysiinayaa bixinta inuu wax bixinayno ilaahay amaahino. dee ilaahay weynaa waxa loo dhiibtay inuu yahay wax weyn. markaasaa wuxuu tilmaamayaa kamathali xabbatin أنبتت 100 حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وحبت soo saartay naas 100 mir 700 mir intuu doonana ilaahay waa u sii laablaabaya qofku doono. كمثل جنة بربوة mar kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu waxaynu ilaahay siinayno amaahinayna inuu la mid yahay beer meel wanaagsan ku taala oo aan ba'aynin oo waqti walba midhaha soo saaraysa. idan waxaynu ilaahay amaahinayno inuu dhiibanaynaa isagoo marka hore bayna siiyay inuu yahay wax aad u qaali ah oo qiimo badan bay aayaadkuna jeclaysiinayaan. marka waa mudaacafatu sadaqaat wa qiimatu sadaqa ayaa nasku ina baraya ilaahay noo horeysiyo subxaanahu wa tacaala si qiimaha iyo tayadaasi ay u jirto. hunaaka aadaab lisadaqa, sadaqadii inay aadaab leedahay baa aayaduhu ayna barayaan, aynu dhegaysan doonaa insha allah. aadaabtaas ilaa 4-5 meelahaasay noqonayaan. waxaa ka mid ah aadaabtaas cadamu اlأdaa wاlman fi الsadaqa. laa tubdiluu sadaqaatikum biاlmani wاlأdaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa الnaas. sadaqadiina ha ku burinina baa ilaahay u leeyahy inaad gallad sheegataan oo qofku uu sheego wixii uu bixiyey ama uu dhibaato ka dabageeyo caam iyo khaas mid kastaba ha ahaato ama uu istusnimo raaciyo. saddexdaa arrimoodba waa adab darro la raacin kara sadaqadii. markaa waxaagu inuu daacad ahaado, adiga ilaahay idinka dhaxeeyo, isla markaana aada u aragta inaad adigu uga baahan tahay halkaad ku bixinaysay ciddaad siinayso. haddaad miskiin siinayso ama jiho khayriya ku bixinayso, baahida halkaasi u qabta mid ka badan baad adigu u qabta adaa danaysanaya. adaabta afraad waxa weeyaan saddexba halkaa ilaahay uu ku sheegay waxaynu bixinaynaa inuu noqdo wax tayo leh oo aan ilaahay la caabaynin oo wax liita aan laga horgeynin rabbi subxaanahu wa tacaala. anfiquu min طayibaati maa kasabtum buu ilaahay leeyahy. waxaa shaqayseen kiisa wanaagsan bixiya. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. بتسيدوا إلهي إنه الله وين يقانا بخيل كل هاي يقانا سبحانه وتعالى. واحد بحنا يسان وح وناكسنها هذا بولاي ووح اللي تها بحننا وإذنكم بها الدين لا يدين سيا أيضا قادتين إن إسكو قبضوا المويان وحن لنا وحمان دون إننا والله إن إسكو قبضوا باكو قاتبين لنا indha isku qabadkeenii buu ilaahay sheegay. marka wax idinkoo indhaha isku haya mooyadaan saani u qaadateen dadkana ha ku caabaynina baa ilaahay. marka wixii wanaagsan ayaa wax laga bixiyaa. waa aadaabtii bay ka mid tahay. aadaabta waxaa ka mid a waxaad bixinaysaa inuu yahay xalaal ah oo isaguna waa shay dayiba. qul laa yastawi alkhabiiثu waطayib. waxa wanaagsan iyo waxa xumi ma sinna. marka shayga aad bixinaysa hadduu xaaraan noqdo laga aqbali maayo. in allaha طayibun walaa yaqbalu ilaa طayiba. ilaahay u xalaalun buu aqbala. haddaad weligaa iyo allaha u xaaraanahoo badan bixiso kuuma tirsana.
hantidii ummadood ka qaaday oo u noqotay un weey adiguna dambi un baad ku lahayd deeqduna dadkii lahaa bay gaadhay adaabta lixaad waxa weeye at-taharruru min waswaas ash-shaytaan shaytaanka iyo waswaaskiisa inaad ka xorowdo garbuhu ku haystaa yabaal buu kugu abuurayaa wax badan buu kuu sheegayaa markaad istiraahdo wax bix ash-shaytaanu yacidukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahshaa fahshaaga culimadu waxay ku fasireen bakhaylnimada xalla wixii xun buu ku farayaa bakhaylnimo ku farayaa iska haysa buu leeyahay intan kuma badheer halkan ku farsamee marka lixda arimoodba waxay ka mid yihiin min aadaab as-sadaqa qodobka saddexaad waxa weeye kayfiyatu adaa'i hadhihi al-ibaada cibaadadan ifaaqa habkaynu gudanayna ma si sirabaynu gudanaa mise si caadaho muuqata labada way noo banaayin ilaahay baa wuxuu in tubdu sadaqaati fan'im ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum labadaba laakiin culimadu waxay leeyihiin qaybta dambe ilaahay wuxuu raaciyay faqiir buu raaciyay ama fuqaradii sadaqada hadaa muujisaan way idin fiicantay hadaa qarisaan oo fuqaradii dadka baahan siisaan way khayr badantay marka halka dambe waxa laga fahmayaa marka faqiir iyo qof la siinayana qarintay ku fiicantay marka jiha caama iyo danguud lagu bixinayo qofkii loogu manna sheeganayna muujintay ku fiicantay sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu minbarka istaaga jihaadka iyo danaha guud uu u yaboohin jiray dadku ay ugu tartami jireen laakiin qof damqanayo oo dadka iska ilaalinaya marka wax la siinayo in loo laabo ayaa ku fiican waa kayfiyatu adaa'i hadhihi al-ibaada labada siyoodba way banaayin qodobka afraad ee aayaadku ay ka waramayaan waxa weeyaan masaariifu hadhihi as-sadaqaat waxaanaynu bixinayna meelaha lagu bixinayo walikulli muhtaaj meel kastoo baahan baa lagu bixinayo qof kastoo baahan ama gaal ha ahaado ama islaam ama caasi ha ahaado ama caabid qofku hadduu baahan yahay gaajo lagu eegi maayo ilaa muxaaribka mooyaane qofka inala dagaalamaya cadowga mooyaane ciddii kale baahanba xataa alxayawaanaat waa la siinaya waa lagu deeqaya ilaahay baa yidhi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa aayaadkay ku jirta adiga kuma saara inaad hanuunisee wixii aad helayso unu dhiib yahuudiga dawarsanaya iyo nasraaniga iyo faqiirka iyo cid walba waa la siinaya waxba laga yaabaa in lagu soo islaamiyo qalbigooda lagu qabto lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illaah dadka iyaguna jihaadka ku kooban ee cilmiga baranaya ee khayrka u heelan iyagana ha la siiyo marka labada aayadood ee isdaba taagana waxay tilmaamayaan jihooyinka lagu bixinayo deeqda oo dadka muslimiintu waxyaabaha islaamkooda ku baahiyaan buu ka mid yahay deeqda iyo dadaalka ay ku bixinayaan xagga cadiyada sida maanta ay hay-adaha tansiirka iyo tabshiirka ama mishanka ee diinta kiristanka faafinaya dadka quluubtooda u soo jiitaan oo ay wax ugu fidiyaan halkaa waxaa ku jira hay-adaha muslimiinta iyo tujaarta muslimiinta sakadana qayb baaba loo baasgaraynayo dee la siiyeyba oo qur-aanku siiyey dadkaa mu'alafatu quluubum la yidhaha qalbigooda la soo dhaweynayo qodobka u dambeeya shanaad waxa weeyaan takhiiru haadihi sadaqaat deeqdaa aynu bixinaynaa inaanay yaraanin xoolaha dad baa inala le waa laynaga dhexlayaa dadkaa inaynu la boobno inta arrinku gacanta kugu jiro ee aan lagaa dhaxlin ee aanad marti ku noqonayna dhulka hoos marin maantaad joogtaaye la boob dadka dhaxalka loo ka gaadhsii aladiina yunfiquuna amwaalahum sira wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayadda u dambaysa dadka xoolahooda bixinaya baa ilaahay habeenkii iyo maalinba fi leyli wanahaar wasira wacalaaniya habeenkii iyo maalinta waa bixinayaan si hoose iyo si qarsoon iyo si muuqata labadaba bixinayaan abaalkoodu ilaahay agtiisa u yaalaa waa awliye ilaahay oo cabsi iyo muruga midna ma saara marka aayadda u dambaysa waxay tilmaamaysaa maalka aynu bixinayna inaanu inagu yaraanin ee sidaad ugu raaxaysanayso ee adduunka aad u bixinayso si ka badan waa inaad raaxada aakhirana ugu raadisaa idan shanta mowduuc baynu ku soo ururin karnaa 14 aayadood qaybaha ay ka waramayaan ee infaaqan markaynu si guud u eegno aynu ta'amulaad ku samayno marka cibaadadeena iyo cilmiga aynu qaadanayno waa inaynu ku lamaanaynaa oo aynu ku lifaaqnaa cadiyada iyo deeqda iyada oo aanay shardi ahayn qofka wax bixinaya inuu wax badan hayo dadka qaarkood waxa laga yaabaa marka la yiraahdo wax bixin inuu isdhaafiyo yiraahdo adiga maaha kaa loo jeedaa waa tujaarta iyo kuwa waxa badan ee buurbuuranaya sidaa ha u fahmin
nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sabaqa dirhamun b100,000 dirham gini baa ka dheereeya 100,000 oo gini ginigaas siduu uga dheereeya waxa weeye qof baa haysta 2 gini mid buu bixiyey midna masaariif buu la haray qofna waxa laga yaabaa malaayiin buu haystaa 100,000 buu bixiyey kan labadii uu haystay mid bixiyey 50% buu bixiyey kan kalena waxa laga yaabaa 100,000 inay noqdaan dee 1% 100 inay noqdaan marka waxa laga eegayaa qadarku xoolihiisa ka bixiyey ayaa laga eegayaa 100 kala badha marka kaasaa ka dheereeyay buu leeyahay ka kale waxa uu bixiyey kaasaa ka badiyay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay u fahamsaneen qofba waxa uu wuxuu hayo inuu wax ka bixiyo inta halka istaagado waxba la siiyay waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu dhameystiray ayuu isu diyaariyay qaybtan hadaba ana intaan bixinaya soo inta la ima siinin aniguna intaan haatan bixinaya war iska haysabaale imikaaba lagu ururiyay bal ku asturna oo naga joog marka sidaasay tahay dhalinyarada iyo dadka aan waxba hayn qof waliba wixii uu helayo inuu wax ka bixiyo noocyada kala duwan ee Ilaahay ugu deeqay waana shukriga la xusayo quraanku aad inoogu waaniyo qayb kamida weeye inaad ficil iyo qowl kula timaado oo shukrigu maaha alxamdulillah iyo wardigo kaliya aad badisee waa shukriga gacanta aad u muhiima iyo shukriga qowlka iyo shukriga ficilka icmalu ala daawud shukran amal bal doonayaa baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته